iyadoo dhawaan la filayo in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho la isla ogol yahay isla markaana waqtigeeda ku dhacda ayaa haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxay aragtidooda ka dhiibteen cidda ay u saadaalinayaan inay hogaamiso ummadda Soomaaliyeed waa kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya waxaan u rajaynayaa inuu ku guuleysto magacaygu waa Cabdinaasir Caafi Warsam waxaan u rajaynayaa inuu ku guuleysto mid khayr qaba oo ah midka hadda jooga sababtu waxay tahay waxyaabaha uu ka qabtay dalka 4 sanadood oo uu joogay waxaa ka mid ah hawadii Soomaaliya soo celiyay waxaa ka mid ah dadkii maxaabiista ahaa oo ku xirnaa dibadaha buu keenay wuxuu wax ka qabtay siyaasadda dibadda dawladaha baasaboorkeena wuxuu ka yeeshay qaymo iyo sida siyaasadda loo wado waana nin 4 sano xil soo hayay oo garanaya processka loo marayo siyaasadda haddii aadan ka soo qaadayna qof kale doorano waa inuu soo fahmaadna siyaasadda si u socoto marka waxa noo fiican inuu madaxweyne farmaajo noo soo laabto soo hawlaha isagu sii wado magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed doorashada wadanka ka dhacaysa waxaan rajaynayaa in madaxweynaha oo waxa lahaa qaab oo wanaagsan oo lagu wada qanci karo oo la imaado mucaaradka iyo xaala qolyaha siyaasadda ee dawladda matalaya ee hadda maanta ajaduha ay soo saari doonaan ayagana maslaxad dalka wax ku kooban inay ka dhigaan magacaygu waa Zahra Cabdullaahi Maxamed waxaan rajaynayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dib noogu soo noqdo والله مقعيقة وحسن حسين جمعالة إن شاء الله وحرجينا إن ندرك قصة عليه مدحينا هذا دلك هايو إن أو سؤال لابتهم ملبات مع عبد الله فرماجو. sababta ku leedahay والله سببت أن كل واحد تاع وانين ربع عداء أو سياسية أو دل دبت أو صوح حرق أو وحكي قانون لأنه محايا وحياة بدن حكب بدلي وحكب بدل قاب اسمك أو عيدا وحكب بدلي وحكب بدلي حاجة أرمها الدبت وحبه وحكب بدلي والله وأنا حاسس ليا بقولك بقول وهدي أفر لكل وقدره بقولك بقول حمر نقد دونته سيف ماله بلا مريض دونه إن شاء الله رجينا بيدنا كريم وحنقول رجيها الجول. doorashada dalka ka dhacaysa sanadka soo socda Soomaa walaa tan walba nasiibkiis hada waxna waa fiican nasiib la galo laakiin waxa isleeyahay ninkii wax qabanayo oo dalka iyo dadka wax qabanayo ya inuu macnaha saadaasha uu noqdo madaxweynaha والله هو هذا مشرحين حتى ترو مدحوينها هذا دلك هايو Soomaa mayo waxaan rajaynayaa inuu farmaajo soo laabto يا sababta ku leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda wax walba dhinaca ciidamada intaas inuu macnaha oo ka dhigay bismillaah anigoo magacaygu bilaawaa Khalid ugu horeyn horta barnaamijkan waa soo dhaweynayaa ummad Soomaaliyeed meel ka soo joogtaan aad iyo aad u salaamaya haddii barnaamijka uu gudo galo doorashada soo socota waxa uu rajaynayaa madaxweynaha hadda xalan hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abduul sababta u leedahay haddii aan sababeeyo xaqiiqda markii ugu horreysay boorkiisa aan arkay waxaa ku qorneed danta dalka iyo dadka run ahaantii wuuna ka dhaweeyey oo maanta way ka muuqataa waxqabadkiisa dalka iyo dadka saasaa ku taageerayaa Soomaaliya meel kasta joogto ha noolaato doorashada waxa uu rajaynaa horta yani wadan nabad leh yani madaxweyne oo nabad soo jiidaayo wadanka dhisaayo iyo dhalinyartooda aa rajaynaa بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Saciid Cabdullaahi Cabdiraxmaan Shire waxaan ka hadlayaa barnaamijka doorashada runtii doorashada waxa weeye aniga hadda waxaan taageerayaa waxaan rajaynayaa inay dhacdo doorasho fiican oo xor iyo xalaal ah waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo waqti badan xil 4 sano uu soo hayay waxa weyn uu soo qabtay cid madaxa aan u jaayfeenmayo laakiin waxaan rajaynayaa in uu doorashada si habaysan u qabto waxaan taageerayaa madaxweyne musharax Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo musharaxiinta ka mid ah hadda tamaysa magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Diiriye oo ku nool magaalada Muqdisho fikirkayga markaa cabiray Soomaaliya xaalka hadda ay marayso sida uu maaragtay maamul wanaaga iyo dawladda wacan iyo waxqabadka wadanka iyo horumarka la gaaray in maaragtay la sii siyaadaya u baahanahay haddana Soomaaliya dhakhtarkii oo daaweey waaba leeyahay madaxweynahan joogo aan rabnaa haddana in dib uu soo laabto
وشقادي وعلى لغو يقاننا سيدا مسترو أدام بوكانكي سومالي دكتور في عنا يهلين dadkan wax bumbuurina in ha joogaan nabadooda ha galaan madaxweynaha farmaajo hadan u rajeynayna inuu guuleysto wadankan aad wax qabadna ku leh taariikh fiicanna ku leh hogaamiye hadda dhaamo oo Soomaali isha ay ku hayso malaha marka farmaajo aan u rajeynaa inuu ku soo baxdo sababta uu leedahay maxay wax qabadkiisa iyo sidoo uu dadka maaragtay wax ugu qabtay baan ku cabireynaa ninkan iyo natiijooyinka fiican uu keenay iyo maamul wanaaga waa dawlad musuqmaasuq iyo xaqa dadka aan ku cayaarin dawladnimadana iftiimisay wax qabad wacanna keentay ayadoo la sii dhibaateynaya laakiin wayna ka hormaraysaa waxaas bismillahi raxmaani raxiim aniga magacayga waxaa la yidhahaa cali jaamac doodi rajada waxaa waaye dawladdu dadku qofwada si uu maaragtay u taageersan tahay anigu hadda doorasho maba sugaani ba aniga waxaan sugaaya oon rajadeeda ay qabtaan in dawladda wax loogu daro sanad loogu daro si ay doorasho cadaalad ay ula timaado maxaa yeelay gobolladii maamul goboleedyada waa qaylinayaan mataal ka soo qaba Hirshabelle oo kaleeto isma raacsana meelihii laga soo dooran lahaa madaxweynaha wax dooran lahaa waa maamul goboleedyada iyo qabaa'ilada dalku dib u heshiisiin ma leh qabaa'iladii waa dagaalsan yihiin qabaa'iladii waa dagaalsan yihiin maamul goboleedyadu waa dagaalsan yihiin ani marka waxaan qabaa madaxweynaha farmaajo la baxay nabad iyo nolol in sanad ama 2 sano loogu daro si xal loo gaaro oo dib u heshiisiin loo helo hadalka shacabka reer Muqdisho ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhawaan la filayay in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada aqalka sare inkastoo waqtigii loogu talagalay ay ka dib dhacday hase yeeshee waxaa la filayaa in maalmaha soo socda doorashada aqalka sare ay ku qabsoonto caasimadda Soomaaliya Muqdisho